Salaan saaxiibayaal, maanta waxaan idin sharaxi doonaa filim action iyo saynis ah oo lagu magacaabo Badland. Si aan u bilowno filimka, muuqaalka like saar YouTube-kan subscribe dheh. Bilowgii filimka waxaa muuqata dhul bannaan oo qalalan. Wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Jerome ayaa noo sheegaya inuusan arag dhulkan oo cagaaran, balse aabihii hore ayuu u arkay. Sanado ka hor dhulkan waxa uu hoy u ahaa beeraley badan oo wax ku beeri jiray, laakiin markii abaartu ay dhacday hal geed ma koro biyo la'aan awgeed. Inta badan beeraleydu way ka carareen, balse aabaha Jerome oo lagu magacaabo Ernest wuxuu rajaynayaa in markale dhulkan cagaar uu noqdo. Kaliya waxa uu baahan yahay ay tahay biyo, laakiin adduunkan dadku waxay isu dilayaan biyo darteed. Qaybtii hore ee filimka, laba tuug ayaa isku dayay inay jabiyaan guri yar. Ernest ayaa qabta oo dilay mid ka mid ah, kan kalena marka uu la soo baxay qori qarsoodi ah ayuu isla markiiba dilay. Wiilkiisii Jerome ayaa ku doodayay inuu badbaadi karay nimankan. Gurigii ay doonayeen inay jabiyaan tuugadu waxa uu lahaa tubo yar oo tuuga, balse markii Ernest uu isku dayo inuu isticmaalo tubada ma shaqaynayso biyo la'aan darteed. Ernest iyo wiilkiisa waxa ay ku safreen dameer si ay ula kulmaan dadka loo yaqaan waterman, kuwaas oo biyaha ka soo saara ceelal qoto dheer oo dawladdu maamusho. Ernest waxa uu markasta alaaba ku bedelanayaa biyaha, balse muddo badan ayuu ka codsanayay in biyo la siiyo si uu u beerto dhul yar. Nasiib darro, taas waxa ay sameynayaan kaliya markii lacag badan la siiyo, taasoo Ernest uusan awoodin. Markii ay soo noqdaan dameerkii ayaa dhacay oo lugta ka jaba. Ernest si dhib leh ayuu u toogtaa dameerkii si uu xanuunka u dhaafiyo. Gurigooda ayayna ku laabteen, halkaas oo walaashii Jerome ee Mary ay diyaarisay cunto yar. Biyo la'aan darteed, Mary waxay ku nadiifisaa weelasha ciidda. Maalintii xigtay, Ernest iyo Jerome waxa ay tageen suuqa oo leeyahay Sam Lefer si ay u helaan wax bedel u noqon kara dameerkoodii dhintay. Halkaasna waxa ay ku arkeen mashiin robot ah oo xambaara alaabta oo lagu magacaabo Sim. Ernest ayaa ku guuleystay iibka, isagoo ka guuleysan in lagu magacaabo Flame Lefer oo ah wiilka Sam. Flame waxa uu xiriir qarsoodi la leeyahay Mary, arrintaas aysan ogeyn Ernest iyo Jerome. Kadib waxay aadeen isbitaalka, halkaas ay ku jirto hooyada Jerome, waxayna ku socotaa qalab qaali ah, mana awoodaan inay guriga keenaan. Maalintaas Jerome waxa uu la joogo hooyadii, halkaas oo Ernest oo xaaskiisa macsalaameeyay. Markii ay soo laabteen waxa ay istaageen kaalin shidaal, halkaas oo xitaa Ernest oo cabay xoogaa shidaal ah. Waxayna la kulmeen qoys carruur yar wata oo baryaya biyo. Ninka qoys kale ee Ruben wuxuu doonayaa inuu iibiyo cunuga sababtoo ah ma daryeeli karaan. Ernest ayaa ka waaninaya inaysan samayn sidaan, wuxuuna u sheegayaa inuu biyo ku caawin doono. Ruben oo xiriirka Flame iyo Mary ayaa si qarsoodi ah ugu sheegay Ernest. Ernest ayaa weydiinaya Mary sababta ay uga baxda habeeno badan guriga. Mary waxay ku doodaysaa inay xorriyad leedahay, xitaa waxay aabeed ku tiri waa ay nacab tahay. Markii ay isku dayaan inay baxsato, Ernest ayaa ku xanibaya qolkeeda oo xitaa daaqadaha ka xiray. Subaxdii xigtay, Ernest iyo Jerome waxay ogaanayaan in robotkoodii la xaday. Ernest waxa uu maleynayaa Flame, waxa uuna aaday gurigiisa, laakiin Sam ayaa u sheegaya in wiilkiisa uu saaka qaatay gaari uuna aado dhankaas iyo buuraha. Ernest markaas ayuu u tagayaa watermankii, balse way garaaceen oo uu mirbeelaa. Habeenkii ayuu toosayaa ayagoo ku eedaynaya inay ka xada alaab, wuxuuna ku doodayaa inuusan waxadin, balse hogaamiyahooda Saleba ayaa dagaal la galay. Ernest ugu dambeyntii qorigiisa ayuu la baxsaday. Markii uu soo laabtay waxa uu arkayaa Flame oo ku hurdaya jidka, robotkiina dhinaciisa yaalla, wayna caddahay inuu isaga xaday. Ernest ayaana qora ku qabta, gacantana ka xiray, kuna qasbay inuu la socdo si uu u geeyo watermankii una caddeeyo inuusan isagu xadin. Inta ay socdaan, Flame waxa uu ka hadlayaa Mary isagoo ku xumeynaya Ernest, taasoo ka xanaajisay. Labadooduna way haraadsan yihiin. Flame waxa uu ku qancinayaa inay cabaan biyaha uu xaday. Markii ay fadhiistaan ay cabeen, Flame waxa uu isku dayayaa inuu ka dhaadhiciyo Ernest in la sii daayo oo uu lacag qaato, laakiin Ernest waxa uu go'aansaday inuu watermankii u geeyo. Ernest oo daciif ah oo socodka ku adkaaday ayaa ugu dambeyntii uu dhagax madaxa ugu dhuftay Flame. Dhiig badan ayaana ka yimid. Markii uu toosay, Flame ayaa ku xiraya isaga halkii uu isagu ku xirnaa. Xitaa Flame waxa uu ku shubay biyo afkiisa si uu ugu jeesjeeso. Haddana Flame guriga ayuu ku laabtay si uu ula baxsado Mary. Mary iyadana si farxad leh ayay u raacdaa. Jerome oo aabihii raadinaya waxa uu helayaa robotkii oo kaliya. Markii uu watermankii la kulmo, Ernest waxay u sheegayaan inuu dhintay. Dadkuna waxay aamineen inuu mashiinku sababay dhimashadiisa. Waxaana dhacday aaska Ernest in dhammaan qoyska ay ka murugoodaan. Flame waxa uu noqday qofka cusub ee qoysku ku tiirsan yahay. Wuxuu xitaa sheegay inuu jecel yahay Mary ay uur u leedahay. Jerome arrintaas u aqbalaa. Flame waxa uu isku dayayaa inuu ku qanciyo watermankii inay biyo u diraan dhulkii Ernest. Ugu dambeyntii, Salema oo ka baqaya in lagu eedeeyo dilka Ernest wuu aqbalaa. Dhulka ayaana biyo helaya, waxaana koraya geedaha. Flame iyo Mary way isguursadeen, waxa ayna ku noolaayeen guriga Ernest, laakiin waalidkii Flame iyo Sam iyo banki si ay dhulka uga qaataan deyntii lagu lahaa Ernest. Flame lacag ma haysto, sidaa darteed wuxuu u baxay si uu mashiinka u iibiyo, wuxuuna u tagayaa Ruben, balse si qarsoodi ah ayuu ilmaha ugu iibinaya. Ilmaha uu iibiyey isagoo Ruben ku qiyaamay. Ruben waxa uu isku dayaa inuu diido, Flame wuu dilay. Dagaal ayaana ka dhaca, Flame wuu baxsadaa isagoo lacag wata. Robotki Sima dhaawac ayaa soo gaaray, wuxuuna si toos ah ugu noqday ninkii sameeyay ee Calvin. Calvin waxa uu soo wacay reerkii lahaa si uu uga celiyo. Jerome ayaa ogaaday in robotkii uu ku soo noqday ninkii sameeyay ee Calvin, taasoo ka dhigtay in Flame uu been sheegay. Ugu dambeyntii, Jerome waxa uu ka gudbay xadkii si uu Calvin ula kulmo. Halkaas ayuuna ka ogaadaa in indhaha robotka ay duubayeen wax kasta oo dhacay. Markii uu fiiriyay muuqaalada, waxa uu arkayaa Flame oo aabihii si toos u dilaya. Jerome aad ayuu u naxwoon ilmeynaya. Markii uu guriga ku laabtay, Jerome wuu aamusay, balse qorshe ayuu bilaabay. Balse ugu dambeyntii, Flame ayuu ku qanciyay inuu tago meeshii uu ku dilay aabihii. Halkaas ayuuna god ku dhacay isagoo ka jabay lugaha. Flame ayaa caawimaad weydiistay, balse Jerome oo qora wata ayaa hor istaagay. Flame waxa uu isku dayayaa inuu cudurdaar sameeyo, balse ugu dambeystii Jerome wuu dilay. Mary oo weli uur leh waxa ay sugaysaa ninkeeda, balse Jerome wuu qariyaa dhabta. Ugu dambeyntiina waxa uu go'aansaday inuusan runta u sheegin Mary. Filimkuna waxa uu ku dhawaadaa Jerome oo tirtiraya muuqaaladii uu robotku duubay si uu qoyskiisa u badbaadiyo. Aad ayaa u mahadsantahay haddii intan aad soo gaartay muuqaalka like saar YouTube.
YouTube-keena ku soo bir si aad u daawato muuqaalo kasta oo aan soo gelino bartayna.